webagga magaalada Baydhabo Haroonto gobolka Baayreedan kanagada wasiirka gaadiidka iyo duuliyowka wada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdullaahi Balaag oo mudooyinkii dambe hore shaqada soo ka maqnaa magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo garoonkii magaaladaasi dhismo ku dareera walibana Abdullaahi Balaag mudooyinkii dambe oo sahaayka soo kormeeray garoonkaasi ee magaalada Baraawe oo hata meel faydo samarahaya wayna geekamadiisa magaalada Baydhabo siratan kanagada soo qayb galay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya soona warbixin dheer soo kusay golaha wasiirada Koonfur Galbeed waana soo sheegay inta garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo sata dhismo meel faydo samarahaya ogaasan Cabdi Wahab wasiirka warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba uu safaafay soo kubiyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya safarkiisan ka maqnaa magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed warbixin laga dhageystay wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdullaahi Balaag taasoo ku maqnaa toddobaadkii la soo dhaafay degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo warbixin dheer oo ku saabsan guud ahaanba degmada Baraawe iyo xaaladeeda amni iyo maamulba uu la wadaagay golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena ka warbixiyay halka uu marayo airportka degmada Baraawe isagoo warbixin dheer halka ka bixiyay rajeeyayna in Ilaahay Taala inta lagu guda jiro sanadkan 2018 February aan hadda marayno Abriil iyo May intaan June la gaarin in uu garoonkaas uu noqon doono mid u adeegi doono guud ahaanba Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mid ay ka faa'iidi doonaan dadka reer Baraawe oo muddadii la soo dhaafay iyo sanooyinka ahaydba go'doon ugu jiray dhinaca socodka dhulka iyo cirkaba wasiirku wuxuu sheegay in la wanaagsan ay marayaan in Ilaahay Taala garoonka uu sida uu dhaqsiyaha badan uu shaqayn doono una howlgali doono in Ilaahay Taala iyadoo aad loo amaanay ciidamada ammaanka kuwa AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb qaadanaya sidii garoonka sida uu dhaqsiyaha badan u howlgali lahaa wasiirku wuxuu sheegay in shaqo wanaagsan ay halka ka socoto Faisal Dayo Hussein KJS TV Baydhabo Soomaaliya